بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan Salaama Academy waxbarashada halkaas oo aad ka heli kartid waxbarasho tayo leh oo laga soo bilaabo halka uu hooseysa ilaa iyo laga gaadhayo marxalado aad u sarreeya siiba luqadda Carabiga oo aad ka bilaabaysid alif ilaa aad ka gaadhaysid heer aad waxna qori kartid waxna akhri kartid sidoo kale luqadda Carabiga waxaynu ka bilaabaynaa higaada Carabiga waxaynu ku sii bilaabaynaa xarafka alif waxa loo yaqaanaa waxaana lagu qoraa buugga laymankiisa laba layn dhexdood waana ul toosan oo madaxa ku haysa layka sare ee buugga halka layka hoosena ay ku hayso madaxeeda kale alif waxmale waxa loo yidhi wax dhibicii kama muuqato ba hoos ku halle waa xaraf jiitin hoose leh isla markaana jiitintiisa hoose ay la-eg tahay xarafka alif laba gees oo isla eg ayay leedahay waxaanay dul saaran tahay laynka hoose balse farshaxanku waxay horaa qoraan geeska hore alif yar oo dhanka midigta u jejeeda oo wax yar u jira laynka hoose ee buugga si ay jiitinta hoose ay u qabsato isla markaana ay inta sare uga sarreyso layka ba hoos ku halle waxaa loogu bixiyey ba hoos ku halle dhibicda hoose ee ka muuqata taa korku lebeli sida ba'doo kale ayaa loo qoraa balse waxa ay kaga duwan tahay laba dhibcood ayay kor ku leedahay halkaas oo usha hoose aan wax dhibicihii hoos oolin ta korku saddexley waxay la mid tahay ta'dii oo dhibic keliya korka laga raaciyey jiim hoos ku halle waa xaraf madax sare leh oo dul saaran layka hoose ee buugga halka uu leeyahay calool gudan oo hoos uga digaysa laynka hoose ee buugga madaxa sare waa xariiq baroorta oo aad moodid inay dib eegayso siiba dhanka bidix fuqa hore oo jiitinihii ay xagga midig u jeedo jiim hoos ku halle waxaa loo yidhi dhibicda laynka hoose ku taalla oo ku beegan gudaha ubucdiisa gudan xariiqdiisa madaxiisa dhanka bidix u jeeda iyo dhabarkiisa laynka hoose ee buugga hoos yaalla waa inay isla ekaadaan fuqiisa madaxa midigta u jeeda dhib ma laha haddii dibka laynka hoose ee buugga ku qoran oo u jeeda dhanka midig uu hore uga yara dhaafo ama uu ka taraaro fuqiisa hore xarafka xa waxma leh waa jiimkii oo dhibicdii laga masaxay sidaa awgeed wax dhibic ahi kama muuqato xarafka kha oo loo yaqaano kha korku halle waa jiimkii oo dhibicdiisii uun loogu bedelay korka halkaas oo aan wax dhibicihii ka muuqan hoostiisa iyo meel kale toona oo isagu dhibicdiisa uu madaxa saartay halka jiimku uu ubucda gashaday ilaa iyo imika waxaynu barannay 7 xaraf oo ka mida higaada Carabiga xarafka koowaad waa alif waxmale waa alif waa ka alif ka ku xiga ba hoos ku halle ba waa ba ka ku sii xiga ee xarafka saddexaad waa ta korku levelay waa ta xarafka ku xiga fa korku saddexley marka ba iyo ta iyo tha waa bahwadaag balse waxay ku kala duwan yihiin dhibcaha jiim xa kha ayaa ku xiga jiim hoos ku halle xa waxmale kha kor ku halle waxay ku kala duwan yihiin dhibcaha balse muuqaalka waa iska shabahaan saddexdaa dambe ee jiimka iyo xa'da iyo kha'da ba'da iyo taada iyo tha'duna waxay iska shabahaan muuqaalka balse waxay ku kala duwan yihiin dhibcaha jiim hoos ku halle waka jiim xa kha. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.